بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan kusoo jirnay kitaabkii caqiidada ee magaciisa la yidhaha alictiqaad walhidaaya ilaa sabiili rashaad ee uu qoray sheekhu sunna alimaam abu bakr axmed bin xusein albayhaqiyu raximahu llahu tacaala. sheekhaas oo dhashay markay taariikhdu ahayd hijrada nabiga caleyhi salaatu wasalaam 348, dhintayna 450 markay hijradu ay ahayd hijradii nabiga caleyhi salaatu wasalaam. waxaa inoo dambeeyey oon kasoo hadlaynay shafaacada nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta iyo malaa'igta iyo ilaahay ay shafeecayaan ayaan kasoo hadlaynay. iyadii ayaan kasii wadaynaa. marka shafaacada ahlusunna waljamaaca way sugayaan sida oo axaadiistii aan soo sheegnay ee cadaysa iyo kuwa soo socdaba, laakiin firqooyinka bidcada sida muctasilada iyo qeybo kamida shafaacada ayay diidan yihiin oo dadka naarta la geliya in laga soo saari oo kale, khawaarijta oo kale maala ay diidan. halkii aan ka wadno marka xadiidka 183 halkaasuu inooga bilaabanaya insha allah. wuxuu yihi sheekhu akhbaranaa abu cabdillaahi alxaafid akhbaranaa abu cabdillaahi moxamed binu cali binu cabdilxamiid alaadamiy bimakata isagoo jooga. xadahanaa isxaaq binu ibrahim addabariy akhbaranaa cabdurazaq akhbaranaa macmar can الzuhriy can caطaa bni yaziid allaythiy can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam. waan kaa xumeeyey. qaal abu hureyra wuxuu yihi qaala annaasu dadkiibaa waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah, rasuulkii eebow, hal naraa rabbanaa yowma alqiyaamati, maalinka qiyaamada eebe ma arkaynaa? qaala nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam hal tudaaruuna, yacni miyaa laydinku dhibi fi shamsi qoraxda aragtideeda, laysa duunahaa saxaab, qoraxda oo wax daruura ayna ka sokaynin, miyaa maaragtay dhibaata idinka soo gaadhi inaad aragtaan oo barhkiin barhka kale uu isku cidhiidhiye? qaaluu waxay dhaheen laa yaa rasuul allah, qoraxda nin walba meeshiisu ka arkaya. qaala wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam fahal tudaaruuna, ma laydin dhibi fi lqamari dayaxa, yani fi ru'yati alqamar, dayaxa aragtidiisa, leylat albadri, oo habeenka leylatulbedriga jooga. leylatulbedriga waxaa weye habeenada uu dhamaystiran yahay 13, 14, 15 nuurkiisa meesha ugu dambeeyey uu joogo. qamar oo leylat albedri, habeenka oo leylatulbedriga a jooga, laysa duunahu saxaab, wax daruura oo ka sokeeyaana uuna jirin, miyaad isku dhibaysaan oo dhibaato miyay aragtidiisa idinka soo gaadhi? ayuu yihi nabig alay slam. qaal waxay dhaheen laa yaa rasuul allah, dhib naga soo gaadhi maayo, qof walba isagoo meeshiisa fadhiya ayuu arkayaa. qaala wuxuu yihi fa inakum idinku tarawnahu eebba waad arkaysaan yowma alqiyaamati kadalika, saas oo kale. marka xagga kadaalikadu ilaahay wax shabahaa ma jire, waxa weeye xagga dhibaato la-aanta dayaxa iyo qoraxda sida aragtidooda uuna dhib idinka soo gaadhayn ayaa eebba weyne aragtidiisana uuna dhib idinka soo gaadhayn. dhankan un baa la iskaga shabahayaa. dee ilaahay wax lamida subxaanahu, ilaahay aragtidiisu lamid ma aha aragtida qoraxda iyo dayaxa lamid ma aha, ee xagga dhibka un baa lagaga shabahaya inuuna dhib ayna jirin. fa inakum tarawnahu yowma alqiyaamati kadalik. markaasuu nabigu sii sharxay calayhi salaatu wasalaam. yajmacu llahu, ilaahay wuu kulmin annaasa dadka, fayaquulu wuxuu odhan man kaana yacbudu, duulkii ahaaday kii caabudi jiray shay-an shay, falyatbachu ha raaco. qaala wuxuu yihi fayatbacu wuu raaci man kaana yacbudu ashamsa ashamsa, duulkii qoraxda caabudi jiray qoraxda ayuu raaci. wayatbacu man kaana yacbudu alqamara alqamara, duulkii oo dayaxa caabudi jirayna dayaxa ayuu raaci. wayatbacu man kaana yacbudu addawaaqiit, asnaamta kii caabudi jiray addawaaqiit ayuu raacaya. wa tabqa hadihi lumma,
ummaddan oo maxamediyada ayaa soo hadhi fadakara deedna wuu sheegay alxadiida fi ru'yati xadiidkii ru'yada ayuu deedna sheegay oo dhamaystiray. huma qaala wuxuu yihi nabigu calayh isalaatu wasalaam wayudrabu waa la yeeli jisru jahannama jahannamo buundadeeda ama biriijkeeda ayaa la qutamin yudrabu waxaa la dhisi oo meesha la dhigi jahannamo yana buundadeeda oo yani jahannamo dusheeda ayaa saas loo dhigaya oo markaa dee laga dhammaado jannadii weeye. fa akuunu waxaan ahaan awala man yujiizu duul gudbe duulka ugu horeeyaan ahaan wa dacwa rusuli rususha dacwadoodu yowma idin maalinkaa iyada ah waxa ay leeyihiin allaahuma sallim sallim ilaahayow badbaadi ilaahayow badbaadi ayay noqonaysaa rususha dacwadoodu. allahuma sallim sallim yani sallim maa maxay macnahooda yani ilow khalqiga badbaadi yani marka rususha in naxariistooda iyo raxmadooda ay weyn tahay ay khalqiga ay u qabaan ayaa meesha ayaa laga qaadanaya. walahu waxaa u sugnaaday jahannama kalaaliibu kalbado marka kalaaliibta waxaa weeye waa bir oo deedna madaxeedu saa usoo godan yahay kalaaliib ayay leedahay jahannamo. kalaaliibta oo mithlu shawki sacdaan geedka sacdaanka la yidhaahdee taqaanaan carabay yani qodaxdiisoo kale ah u eg xagga bildhaanta. qaala wuxuu yihi hal ra'aytum shawka sacdaan geedkaa sacdaana qodaxdiisa miyaad aragteen? qaaluu waxay dhaheen nacam yaa rasuul allah. qaala wuxuu yihi fa ina bihaa naarta waxaa ah mithla shawki sacdaan sacdaan qodaxdiisoo kale gayra annahu shaniye laa yaclamu ma oga qadra cidamihaa weynankeeda qadarkeeda ila allahu caza wajala eebba weyne mooyeen. yani xagga sacdaanka qodaxdiisa xagga bildhaanton bay u eg tahay kalaaliibtu laakiin xagga weynida yani ilaahay unbaa og ee cid kale ma oga. qaala wuxuu yihi nabigu fatakdafu nnaasa dadka ayay dafi oy qabsan kalaaliibtaasi biacmaalihim acmaashooda yani bixasabi acmaalihim ayay qabsanaysaa oo ay dafaysaa. fa minhum dadkii waxaa ka mid a almuubaqu mid la halaagi bicamalihi bisababi camalihi oo naarta ku dhici. wa minhum waxaa ka mid a almukhardalu mid la googoyn huma yanjuu badbaadi. mukhardal yani almuqadac bilkalaaliib mid oo hilibkiisa la jeexjeexi oo la googoyn oo ay qabsanayaan kalaaliibta walciyaadu billah ayaa kamid a huma yanjuu deedna aan ku dhacaynin naarta aan ku dhacaynine isagoo dee dhiiggii iyo hilibkii iyo uu jeexjeexan yahay ayuu huma yanjuu ayuu badbaadaya ayuu yihi nabiga alayh salatu wasalaam. xataa idaa faraga allaahu eebe markuu dhammeeyo min alqadaa'i xukunkii beyna cibaadihi addoomihiisa uu kala xukumayey oo wa araada uu doono an yukhrija inuu ka saaro min annaari naarta man araada an yarxama duulkii inuu u naxariisto uu doonayo inuu naarta ka saaro uu doono oo miman kaana ahaa yashhadu kii qiraya laa ilaaha ila allah ilaahay mooyeen ilaah kale inuu jirin ilan gaal isaga cidi u shafeeci mayse. amara ilaahay wuxuu farayaa almalaa'ikata an yukhrijuuhum inay kasoo bixiyaan ayuu farayaa ilaahay dadka ahlu tawxiidka ah ee uu doonaya ilaahay inuu naxariisto. qaala wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam fayacrifuunahum malaa'igtu way garanayaan dadka ahlu tawxiidka ah fayacrifuunahum ahlu tawxiidka malaa'igtu way garan bicalaamati aathaari sujuud sujuudda calaamadahaas raadkoodii aathaari sujuud sujuudda raadkeeda calaamadaheedii bimacnaa intii oo ay ka sujuudi jireen 7 xubnood ee laga sujuudo yani 2 calaacalood iyo 2 jilib iyo 2 lugood iyo wejiga 7daas ayaa laga sujuudaa 7daas ayaa calaamado ayay leeyihiin oo yani naartu ma cunayso. marka 7daba in ay calaamadaha ka muuqanayaan weeye sida raajixa ah ee wejiga keliya yani aynan ahayn. fayacrifuunahum way garanayaan bicalaamati aathaari sujuud sujuudda raadka calaamadihiisi bimacnaa meelahay ka sujuudi jireen ayayna naarta cunayn. qaala wuxuu yihi fayukhrijuunahum malaa'igtu way soo bixin qadim taxashuu
iyagoo dhuxuloobay oo dhuxulo noqday ayay soo saarayaan. qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fa yusabu waa la shubi calayhim iyaga min maa-in biyo yuqaalu la yidhaahdo lahu isaga alxayaat, biyo oo la yidhaahdo xayaat magacooda nolosha, biyihii nolosha ayaa lagu shubi. fayanbutuuna way soo dhalanayaan nabaata alxibati, xabadii soo dhalashadeedoo kale fii xamiili sayl, yacni daadka qaaqadiisa, daadku waxa uu xambaaray oo dhoobadii iyo geedihii iyo daadku uu qaaday xabadda kasoo dhex baxda, sidaasoo kale yani ayay usoo dhalanayaan. fayanbutuuna way soo dhalanayaan nabaata alxibati, xabadii soo dhalashadeeda oo kale fii xamiili sayl, daadka yani qaaqadiisa, qaaqada daadka ay kasoo dhalato. qaala nabigu wuxuu yidhi wayabqaa rajulun, nin baa hadhi oo naarta ku hadhi, ninka oo muqbilun soo qaabiliyey biwejhi wejigiisa cala naari, naarta ayaa baaqi ahaan, nin wejigiisa oo jannada aan soo gelaynin. fayaquulu wuxuu odhan ninkaas yaa rabbi eebow qad qashabanii, yani waxaa isumeeyey, qad qashabanii waxaa isumeeyey oo idhibay riixuhaa urkeedii, wa axraqanii waxaa igubay dakaa-uha ololkeediina wuu igubay. fasrif ilaahu weeci wejhiya, aniga wejigayga cani naari, naarta ilaahu ka weexi, ilaahu wejigayga naarta ka weexi. qaala wuxuu yihi nabigu falaa yazaalu ka zuuli maayo yadcu llaha ilaahay inuu baryi, oo fayaquulu uu leeyahay eebana lacallii waxaan mudnahay in acdaytuka haddaan ku siiyo daalika kaa an tas'alanii gayrahu, inaad wax kale i weydiisato. fayaquulu deedna wuxuu odhan ninkii laa kuma weydiisanayo, wa cizatika cizigaagaan ku dhaartay, sharafkaaga iyo awooddaadaan ku dhaartay, laa as'alu gayrahu, kaa gayrkii kuma weydiisanayo kol haddaad wejigayga naarta aad ka weeciso. fayasrifu wuu weecin eebe wajhahu wejigiisa cani naari buu ka weecin. huma yaquulu bacda dalika, markaa kadib eebe wuxuu odhan may ninkii dheh, huma yaquulu wuxuu odhan ninkii bacda dalika intaa naarta laga weeciyey kadib qaribnii ilaa baabi ljannati eebo jannada albaabkeeda ii dhowe. fayaquulu wuxuu odhan eebe awalaysa miyayn ahayn qad zacamta kii aad sheegatay an laa tas'alanii gayrahu, inaadan wax kale i weydiinaynin haddii naarta aan kaa weeciyo. wa tilka taasi weylaka, yani weylaka hoogaage halaagaage yabna aadam, ina aadamow maa aqdaraka maxaa kaa ballan burin badan, maxaa kaa ballan burin badan. falaa yazaalu ka zuuli maayo yadcuu inuu baryi eebe, oo fayaquulu uu leeyahay eebana lacallii waxaan mudnahay in acdaytuka haddaan ku siiyo daalika kaa oo jannada aan kuu dhoweeyo an tas'alanii gayrahu, gayrkii inaad weydiisato. fayaquulu wuxuu odhan ninkii laa kuma weydiisanayo, wa cizatika cizigaaga, sharafkaaga iyo awooddaadan ku dhaartay, laa as'aluka gayrahu, gayrkii ku weydiisan maayo. wa yucdi llaaha ilaahay buu siin, ninku faacilku waa ninkii, wa yucdi rajulkii wuxuu siin allaha eebbaweyne min alcuhuudi ballamo iyo walmawaahiiqi ballamo la adkeeyey, anlaa yas'alahu gayrahu, inuuna wax kala weydiisanaynin ayuu ilaahay siinayaa oo uu u ballan qaadayaa. qaala wuxuu yidhi nabigu fayuqaribuhu ilaa baabi ljannati, jannada albaabkeeda deedna ayuu u dhoweyni. faidaa danaa markuu dhowaado minhaa jannada markuu u dhowaado infahaqat lahu aljannatu, infahaqat waxaa u furmaysa, yani infataxat watasacat, waxaa u furmaysa oo uu arkayaa lahu isaga aljannatu, jannadii baa u furmaysa. falamaa ra'aa markuu arka maa fiihaa, jannada dhexdeeda waxa oo khayra, sakata wuu aamusi maa shaa allahu an yaskuta, inta eebbe uu doono inuu aamuso ayuu sabriga uu aamusi. huma yaquulu wuxuu odhan rabbi eebow adkhilnii aljannata, jannada ilaahow igeli. fayaquulu eebbe wuxuu odhan awalaysa qad zacamta, miyaadan ahayn kii sheegtay an laa tas'alanii gayrahu, arrintaa waxaan ahayn inaadan i weydiisanayn. awalaysa qad acdayta, war miyaadan ahayn kii siiyey cuhuudaka ballamadaadii, wa mawaahiiqaka iyo ballamadaadii la adkeeyey, an laa tas'alanii gayrahu, inaadan wax kale i weydiisanayn. weylaka yani hoogaagee
ya bna aadamow maa aqdaraka maxaa kaa ballan burin badnidaa ayuu eebe odhanaya fayaquulu wuxuu odhan ninkii yaa rabbi laa tajcalnii ha iga yeelin ashqaa khalqika khalqigaaga ka ugu ayaan daran ha iga yeelin ilaahayow falaa yazaalu ka zuuli maa yadcuu inuu baryayo xataa yu'dana lahu ilaa looga idno bidukhuuli fiihaa inuu jannada galo faidaa dakhala markuu galo qiila lahu waxaa la odhan tamanna min kada tamani bimacnaa qabso qalbiga wax ku qabso tamana yani qabso tamana masalan tamaniga waxa wey inaad tidhahdo waxaya isiiya tamana haddii lagu yidhahdo yani tamani yani rajee wax rajee saasay ka dhigantay waxaa lo odhana bal hadda wax qabso tamana min kada nicmada noocaasa ama guryaha ama beeraha ama waxaas tamana min kada yani waxa noocaasa wax ka tamani fayatamanaa markaasuu tamanino wuxuu odhanaya waxaasan doonaya qaala wuxuu yihi nabigu uma yuqaalu waxaa la odhan tamana min kada waxa noocaasana inta la xusuusiyo isagana wax ka tamaniyo wax ka qabso tamana min kada waxaana wax ka qabso maalan kasoo qaad guryaha oo kale beeraha oo kale webiyada oo kale dumarka oo kale wax ka qabsa ayaa la odhanay qaala wuxuu yihi fayatamana markaasuu wax qabsano waxaasaan dooni waxaas xataa tanqadica bihi alamaaniyu ilaa hididiiladu ay ka go'do wax allaale wuxuu hididiilanayo o dhan ilaa uu ka sheego wuxuu doonayo o dhan ilaa uu ka sheego fa yuqaalu lahu waxaa loo odhan haadaa laka waxa aad qabsatay ayaa lagu siinoo kuu sugnaaday wa mithluhu iyo mid lamida macahu xaalo uu yahay yacnaa waxa aad qabsatay iyo wax lamida ayaa lagu siinaya ayuu ilaahay odhanaya subxaanahu wa tacaala qaala abu hurayrata wuxuu yihi wadalika rajulkaasi ninkaasi aakhiru ahliljannati ahlu jannaha ka ugu dambeeya weeye dukhuulan galid aljannata jannada la galo qaala wuxuu yihi wa abu saciid alkhudriy abu saciid alkhudrina jaalisun kii fadhiyuu ahaa maca abi hurayrata abi hureyre maciisa ayuu fadhiyey laa yugayiru calayhi shay-an min xadiidihi xadiidkiisa isagoo waxba aan ka bedelayn matalan xadiiskan yaa nabiga ka wariyey waxaa ka wariyey abu hureyra marka abu hureyre yaa la fadhiyey markuu warinayay qaala wuxuu yihi raawigii yani qaaladaas cada binu yaziid allaythiyu weeyaan ninka qaaladaas yani odhanaya cada binu yaziid ilan abu hureyre yaa ka wariyey xadiidka haddaad sanadka dib ugu noqotaan can cada binu yaziid allaythiyi can abi hurayrata waa inagii sanadka markaan sheegayna soo niri sheekha sanadkiisa marka qaaladan waxaa wata abu hureyre ninkii ka wariyay oo cada binu yaziida ayaa hadal kale qaala wuxuu yihi cada binu yaziid wa abu saciidin alkhudriyu jaalisun maca abi hurayrata markuu abu hureyre xadiidkaa sheegayey abu saciid alkhudri saxaabiga la yidhaah isagana wuxuu fadhiyey maca abi hurayrata abi hureyre la jirkiisa laa yugayiru calayhi shay-an min xadiidihi isagoon xadiidkiisa waxba ka bedelaynin oo aan lahayn sidaasaa saxya sidaasaa qalda midna ee ka aamusan xataa intahaa ilaa uu ka soo gaadho ilaa qowlihi haadaa laka wa mithluhu macahu ilaa uu ka soo gaaro faqaala abu saciid baa wuxuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama rasuulkii eebaan maqlay yaquulu isagoo leh haadaa laka wa casharatu amhaalihi 10 meelood oo kale 10 meelood oo lamidana way kuu sugnaatay isagoo nabigaan maqlibu faqaala abu hureyrataa yihi xafidtu anigu waxaan xafiday wa mithluhu macahu yani intaa iyo in lamid ah intaa anigu ayaan xafiday buu ihi abu hureyre ayuu wariyey anigu intaasaan xafiday buu ihi abu saciid laakiin wuxuu yihi anigu intaasaan ka maqlay nabiga alayh isalaatu wasalaam oo ay ka badanta marka xadiidkaasina muxuu inoo sheegayaa in dad naarta maaragtay jannada in dad la gelinayo oo ninkaasi dadka jannada la geliyey ayuu ka mid yahay naarta laga soo badbaadiyey أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا يحيى بن منصور حدثنا أبو بكر الجارودي حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو داود حدثنا أبو بكر حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو داود حدثنا مبارك بن فضالة
عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني wuxuu ujeedaa يقول الله rasuulku wuxuu yihi eebe wuxuu leeyahay عزa وجل waa xadيiث الqدس أخرجوا من الناar man ذakrnيi يوما أو khاafnيi في مقاam ilaahay ba wuxuu malaa'igta ku odhanayaa أkhrijuu soo bixiya min الnaari naarta ka soo bixiya man dakaranii yowman duulkii maalin uxusay marka yoomkana waxaa looga jeedaa wakti un baa looga jeedaa yani yowmanta waxaa looga jeedaa waktan iyo zamaan maalinka oo qorax soo bax iyo qorax dhac inta udhexaysa ah kaa yani looma jeeda hadda ow khaafanii iga cabsaday fi maqaamin yani maqaam iga cabsaday yani meel fi maqaamin bimacnaa fi makaanin bimacnaa fi irtikaabi macsiyatin min almacaasi iga cabsaday marka waxay waafaqaysaa وأma man khaafa maqaama rabihi wanaha الnafsa can اlhawى faina aljannata hiya اlma'wa ow khaafani iga cabsaday fi maqaamin yani fi makaanin makaan iga cabsaday oo macsidii ka joogsaday marka xadiidkaasina muxuuna tusinayaa naarta in dad laga soo saarayo oo shafaaco lagaga soo saaray أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة نبي walba waxaa usugnaaday dacwo alla bari إن لكل نبي nabi walba nabi kasta waxaa usugnaaday dacwatan baryo dacwada oo mustajaabatan la aqbalayo oo in la aqbali xaqiiqa ah ayaa nabi walba la siiyey wa inii anigu buuhi suubanu ikhtaba'tu waxaan u kaayadaystay dacwatii aniga ducadayda aqbalka ah shafaacatan liummati ummadayda inaan ugu ergeeyo qiyaamada markay baahan yihiin ayaan u dhigtay wahiya iyadu shafaacadu naa'ilatun minkum tii idin soo gaari weeye ayuu yihi nabiga alayh الsalaatu wasalaam in sha allahu hadduu ilaahay doono man maata duulkii dhinta ayay soo gaadhi laa yushriku billaahi man maata duulkii dhinta laa yushriku xaale uuna u shariig yeelaynin billaahi ilaahay shay-an shayna uuna ugu shariig yeelaynin ninkii dhinta oo dhan way soo gaadhi shafaacada marka waa inagii soo sheegno shafaacadu qaybo badan bay leedahay waxaa kamid a shafaacada oo mowqifka oo dadka o dhan wada gaadhaysa waxaa kamid a shafaacada oo darajaadka mid la ziyaadinayo mid bigayri xisaab jannada lagu gelayo iyo mid dadkii naarta la geliyey laga soo saarayo mid dad naar mutaystay naartii laga badbaadinayo on la gelinayninba waa inagii qaybaheedii horay yani usoo sheeg waraweynaa waan warinay fi hada kan can mucaad binu jabal baan ka warinay wa abi darin baan ka warinay wa abi muusa wa coof binu maalik iyo wagayrihim can inabiyiba iyaguna ayay kasii wariyeen sala allahu alayhi wasalama yani waxay ka dhigan tahay kanta wuxuu ka wadaa shafaacada xadiidka shafaacada saa darteed xadiidka shafaacada muxuu noqday mutawaatir ayuu noqday mid oo cadad oo aan isku waafaqi karin been yani ay wariyeen ayuu noqday xadaثna abu ظاhir alimam akhbarana abu ظاhir mحamed بن xasan almuحamed abadiyu xadaثna أحmed بن yusuf aلsulamiy xadaثna cabdالرazaq akhbarana macmr can thabit can anas qala rasuulu الlahi slى الlahu عalayh wasalam shafaacatii waa mubtade la soco aniga shafaacadaydu liahli اlkabaa'iri khabarkii kaa'inat liahli اlkabaa'iri dadka ahlu kabaa'irta ah kabaa'irta ehelkooda dunuubta waaweyn dadka galay ayay usugnaatay oo min ummati yani ummadayda kamida lakin maxaa kaloo soo ogaanay qeyb kamida weeye taas lakin qeyb waxaa jirta darajaadka la ziyaadinayo iyo midda guud oo mowqifka maqaam ulmaxmuudka ah oo dadka o dhan wada gaadhaysa ayaan iyadana wa inagii soo marnay shafaacatidani allahuma sali calى maxamed oo ilaahay uu ii ballan qaaday taas yan ayay ka dhiganta wa akhbarana abu caliy alxusein bn moxamed arudabariyu akhbarana abu axmed alqasim bn abi salix alhamdaniyu xadaثna ibrahim bn xusein bn dayzila xadaثna moxamed bn abi bakr almuqadamiyu xadaثna jacfar huwa ibn sulayman xadaثna malik bn dinar qala samictu anas bn malik yaquul isagoo anas uu leeyahay
qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu yihi shafaacatii aniga shafaacadaydu hee liahli lkabaa'iri kaa-inun liahli lkabaa'iri kabaa'irta ehelkooda ayay u sugnaatay oo min ummatii ummadayda ka mid watalaadeedna wuu akhriyay haadihi laayata aayadan in tajtanibuu haddaad ka dheeraataan kabaa'ira maa tunhowna canhu waxa la idinka reebaya dunuubtiisa waaweyn marka dunuubta waaweynna waxa weeye wixii waciid uu ku soo arooray sida qatliga dilkaoo kale zinadoo kale sariqada waxlaxado oo kale marka ilaa 700 ayay culimada qaarkood gaadhsiiyaan nukafir waan dhaafaynaa cankum idinka sayi-aatikum xumaantiina sagiiradiinaan dhaafaynaa haddaad kabaa'irta aad ka fogaataan sagiiradii waan idin dhaafaynaa wanudkhilkum waan idin gelinaynaa mudkhalan meel mudkhalanta waxa weeye mudkhalan inaad makaan ka dhigto meel ama inaad masder ka dhigto wanudkhilkum waan idin gelinaynaa mudkhalan idkhaalan gelin kariiman oo wanaagsan ama mudkhalan meel kariiman oo wanaagsan oo jannada labadaba mudkhalka inaad makaan ka dhigto iyo inaad masder ka dhigto labadaba yani way noqon karta akhbaranaa abu caliy arudabariyu wa abu cabdillaahi binu برهان وأبو الحسين بن فضل القطان وأبو محمد السكري قالوا حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت waxaa lay door geliyey buuri nabigu bayna shafaacati shafaacada iyo wa bayna an yadkhula inuu galo shadru ummatii aljannata ummadayda niskeed haafkeed inuu jannada galo iyo shafaacada kala dooro ayaa la yidhi fakhtartu waxaan doortay ashafaacata shafaacadaan doortay maxaa yeelay liannahaa acamu iyada ayaa ka badan acamu iyadaa ka guda weyn wa akfa iyadaa ka kaafin badan shafaacada ayaa iiga badanoo markaa shafaacada ayaan doortay buuri kaasuu nabigu wuxuu yihi atarawnaha ma waxaad u malaynaysaan lilmu'miniina almuttaqiina lilmu'miniina mu'miniinta inay u sugnaatay almuttaqiina ee ilaahay ka cabsada shirkiga iyo macaasidii iska ilaaliyo oo keliya la kuwa qura uma sugnaan walaakinaha lilmudnibiina ayay u sugnaatay almutalawithiina ee ku wasakhoobay ee dembiga alkhataa'iina ee gefka badan kuwaa yacni ayay u sugnaatay ee mu'miniinta keliya ma leh marka mu'miniintana way soo gaadhaysaayo darajaadkooda qeyb waxaa kamid a waa inagii nidhi derajada kordhinaysa oo derajada loogu kordhinayo iyo qeyb tan uu nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam oo mudnimiinta yani ay leeyihiin labadaba yani labada qeyboodba way leedahay akhbaranaa abulfatxi hilaal binu maxamed binu jacfar bibaghdad akhbaranaa alxusein binu yaxya binu cayaash xadaثna abulashcath xadaثna alfudayl bnu sulayman xadaثna abu malik alashjaciy xadaثanii ribci bnu xiraash anahu samica xudayfata bn اlyamaan ayuu maqlay samica rajulan buu maqlay xudayfana yaquulu leh allahuma اjcalnii eebow iga yeel fii man duul tusiibuhu shafaacatu muxamedin salى اllahu alayh wasalam shafaacada nabigu ay gaadhayso qaala deedna wuxuu yihi xudayfe bn اlyamaan baa odhanaya in allaha ilaahay yugnii almu'miniina mu'miniinta oo dhabta ah ee iimaankoodu kaamil yahay wuu ka kaafin can shafaacati muxamedin wuu ka kaafini sala allahu alayhi wasalam walaakina shafaacata shafaacadu lilmudnibiina ee u sugnaatay kuwa dembaaba almu'miniina ee mu'miniinta ah iyo walmuslimiina muslimiinta ee dembaabay ayay u sugnaatay ayuu yihi markaa waa inagii nidhi shafaacada ayaa qeybo badan oo qeyb oo mudnimiinta u sugnaatay iyo qeyb oo derajada kordhinaysa labadaba yani way jiraan akhbaranaa yaxya bnu ibrahim akhbaranaa abulxasan aطraa'ifiyu xadaثana cuثmaan bnu saciid xadaثana cabdullahi bnu saalix can mucaawiyata bnu saalix can caliy bin abi dalxata can ibni cabaas fi qowlihi tacaala walaa yashfacuuna ila liman irtadaa walaa yashfacuuna shafeeci mahayaan ilaa liman duul un bay u shafeecayaan irtadaa eebe raalli uu ka noqday in loo shafeeco yaquulu wuxuu yihi cabdullahi bin cabaas markuu fasiraya aayadda aladiina irtadaahum kuwuu ilaahay raalli uga noqday bishahaadati an laa ilaaha ila allah markay towxiidka la yimaadeen oo ay qireen laa ilaaha inuun ilaah kala jirin ila allahu eebbe weyne mooyeen kuwaas ayaa iskale eebbe uu raalli kaga noqday towxiidka ayuu yidhi marka waa noocoo shafaacada kamida oo
shafaacada yacna kamida weeye. allahuma salli calaa maxamed wacalaa aali maxamed. marka shafaacada ayaa noocyo badan waa inagii soo marnay xagga hore kusoo sheegnay. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا عبيد بن موسى أخبرنا إسرائيل عن السدي قال سألت مرة الهمدانية عن قول الله عز وجل أيام ويديي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إذن كمد معها وإن منكم لما منكم marka meesha waxaad soo gelisaa axadun wa in axadun ma axadun axad waana mubtade oo minkumtu waa sifo waxay ku tacalluqaysaa sifo mubtade meesha ka xadfan sifadiisa waxay ka dhigan tahay wa in axadun ma axadun axad axadka oo kaa-inun minkum idinka mida ma jiro ilaa waariduhaa kii geli weeye naarta kaana wuxuu ahaaday xukunkaasi xatman kii waajiba calaa rabbika rabbiga waajibkaasoo maqdiyan uu xukumay bimacnaa isaga ayaa arrintaa ilaahay xatamahu waqadaa falaa yatrukuhu ilaahay uu xukumay oo ka tegi maayo arrintaa yani ayay ka dhiganta. saas ayuu ku fasiray allahuma salli calaa muxamed ayuu hamadani ayuu ku fasiray oo sudayi baa ka warinay. faxadathanii wuxuu ii sheegay buu yihi ana cabdullaahi bn mascuud xadathahum inuu u sheegay can rasuulillaahi inuu uga waramay sala allahu alayhi wasalam. qaala wuxuu yihi nabigu yani aayadda intuu sidaa ku fasiray buu deedna hamadani ayaa deedna wuxuu ii sheegay bu faxadathanii wuxuu ii sheegay buu yihi ana cabdullaahi bn mascuud xadathahum hamadani waxaa u waramay cabdullaahi bn mascuud can rasuulillahi buu uga waramay sala allahu alayh wasalam. qaala inuu yihi nabigu yaridu nnaasu dadku way aroorayaan annaara naarta ayay ku aroorayaan. yaridu nnaasu dadku way aroorayaan sida xoolaha loo arooriye biyaha loo geeyo. yaridu nnaasu annaara huma yasduruuna way kasoo fulayaan oo naarta kasoo bixi biacmaalihim bixasabi acmaalihim acmaashooda qadarkeeda yani bixasabi maraatibi acmaalihim asaalixati yani ninkii camal saalixoo badan leh sida hilaac oo kale bik waa inagii soo marnay yani biacmaalihim bixasabi acmaalihim. faawaluhum midka ugu horeeya ka lamcil barqi hilaaca biligtiisoo kale ayuu ku mari. huma ka mari riixi dabaysha marideedoo kale. huma ka xudri lfarasi faraska oradkiisoo kale yani xudri lfaras bimacnaa jaryihi faraska oradkiisa oo kale xudri lfaras. huma ka raakibi yani raakibka oo kale bimacnaa ka raakibi cala raaxilati mid oo yani saaran oo kale mathalan gaadiid. huma ka shadi rixaali ragga oradkiisa oo kale shadi bimacnaa cadwi rijaal ragga oradkooda nin orod badan kasoo qaad kuwa orodka markay tartamaan kuwa orodka ugu dheereeyoo kale kuwaasoo kale orodkooda ayuu ku marayaan. huma ka mashyihi mashyi rijaal ragga socodkiisoo kale oo lugeynta caadiga la socdo taas yani ayay ku marayaan. warawaahu xadiidkan waxaa wariyay abulaxwas can cabdillahi bni mascuud fii qowlihi wain minkum ilaa waariduhaa aayadda ayuu ku wariyay. qaala wuxuu yihi cabdillahi bni mascuud asiraadu calaa jahannama yani wain minkum ilaa waariduhaa macnaheedu waxaa weeye asiraadu jidka bridjka ama buundada calaa jahanama ku dul taalla taasaa loo jeedaa. waa inagii tafaasiir oo ilaa 4 waa inagii soo sheegnay oo cabdullaahi bin cabaas isaga wuxuu qabaa dadko dhan way wada gelayaan marka laga sheega ambiyada iyo rususha marka laga reebo. qolooyina way jidka siraad bay leeyihin cabdullaahi bin mascuud qowlkiisan yani kaas ayaa ka mid. waraweynaa waxaan warinay can ibni cabaas anahu qaala inuu yihi waaba kanba sheekhaa soo wada alwuruudu addukuul wuruudka aayadda lagu sheego wa in minkum ilaa waariduhaa la yidhi addukuulu waa galid yani dhammaantiin naarta waa la wada geli. wastashhada wuxuu usoo daliishaday cabdullaahi bin cabaas biqowlihi eebe hadalkiisii antum lahaa waariduun yani kuwii oo gelayaa tihiin aayaddaas antum lahaa waariduun bimacnaa waariduuna bimacnaa daakhiluuna macnaheeda wey suurat lambiya ku jirta. iyo wa biqowlihi faawradahum nnaara wabi'sa alwiridu lmawruud faawradahum wuxuu geliyey fircoon qoladiisii annaaru geliyey wabi'sa waxaa xun alwirdu gelid almawruudu oo lagu arooro yani ayaa xumaan leh.
marka kuwaasay la mid yihiin bu yihi cabdullahi bin cabaas. wa rawaynaa can jaabir bin cabdillaahi can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam anahu qaala inuu yihi alwuruudu addukuulu, wuruudku yani waxa weeye waa galid. marka wuruudka aayadda kusoo arooray waa in minkum ilaa waariduhaa galid in looga jeedo jaabir iyo cabdullaahi bin cabaas ayaynu hadda haynaa sheekhu uu sheegay labadaa inay sidaa yani ay ku fasireen. alwuruudu addukuul wey. uma yunaji aladiina ataqow, ilaahay wuu badbaadin kuwa shirkiga iska ilaaliya iyo macsiyada ayuu ilaahay badbaadinayaa. uma nunaji aladiina dheh, waan badbaadinaynaa aayadda uma nunaji aladiina, kuwii baan badbaadinaynaa itaqow iska ilaaliyey gaalnimada iyo shirkiga. wanadaru الظaalimiina, dhaalimiintana waan kaga tegaynaa fiihaa naarta dhexdeeda jithiyan xaalayin kuwii jilbaha u dhacay oo hoogay ayaan kaga tegaynaa. waqad dakarnaa, waan sheegnay, waqad dakarnaahu buu uri sheekhu, waan sheegnay waxyaabaha kusoo arooray arrintan iyada ah fi kitaab aljaamic, kitaabka magaciisa la yidhah aljaamic waa shucab liimaan ayaa loo yaqaanaa. wa fi kitaabi lbacthina waan ku sheegnay maca saa'iri riwaayaati, riwaayadaha baaqiga a macoodi oo fiihi arrintaa kusoo aroortay. wallahu aclam ayuu yihi sheekhu. allahuma salli calaa muxamed. marka cashirkan maxaynu kusoo qaadanay o kusoo baranay? cashirkan waxaynu kusoo baranay allahuma salli calaa muxamed, shafaacadu inay wax sugan tahay oo nabigu uu shafeeci, mu'miniintu ay shafeecayaan, malaa'igtu ay shafeeci, ilaahayna uu shafeeci. shafaacadu inay qaybo kala tahay oo qeyb midda weyn oo nabiga goonida ku ah calayhi salaatu wasalaam oo dadka mowqifka in lagu kala dareeriyo, taa nabiga ayaa iskale calayhi salaatu wasalaam, iyo mid kale oo dad bigayri xisaab in jannada la geliyo, iyadana nabiga alayhi salatu slam khasaa'istiisa yani ay ka mid tahay. kuwa naarta galay in laga soo saari, kuwa naari u waajibtay in laga badbaadin, derajada in la ziyaadin, qaybaheedii yani waa inagii soo marna. marka baabku laba ayuu ka koobnaa inta badan, shafaacada sugideeda iyo qof ehlu iimaana naarta inaan lagu waarinaynin. qof oo mu'mina, qof muslima inaan naarta lagu waarinaynin intuu doonaba ha ku jire, labada ayuu baabku u guntanaa. labadaana axaadiistoodii iyo wixii kusoo arooray waa inagii soo marnee sheekhu uu inoo sheegay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.